Sweden sawirkan ayaa la hadal hayaa. Wiilkan ayaa 2 gool qurux badan u dhaliyay xulka Sweden. Sweden oo ku badisay 5-1 ay uga badisay dalka Tunisia. Waxa la yaab kale wiilkan asalkiisa aabihiis wuxuu kasoo jeedaa dalka Tunisia. Gooshii koowaad muusan dabaaldegin asagoo xushmad u muujinayo asalkiisa iyo sidoo kale meesha aabihiis kasoo jeeday familkiisa kasoo jeedaan oo markaas tago. Marka wiilkan maadaama uu ku dhashay Sweden wuxuu doortay Sweden inuu u ciyaaro. marka wiilkan waa wiil muslim ah wuu sujuuday marka sawirkan marka waxa ka xanaaqaya kuwa cunsuriyiinta ah ee xisbiga weyn ee hadda ka dhisan Sweden yani xilal ka hayo Sweden ayaa ka xanaaqaya sawirkan ajaanibtii iyo dadkii muslimiinta ahna way soo qaateen maxaa dhacay marka sababta soo qaateen maxay tahay horta xisbiga cunsuriga ahay ee ka soo bilaabmay asaaskiisii naaska ahay wuxuu helay bulsho oo dadka kiciyay dadkii Swedish ku kiciyay kadibna wuxuu noqday xisbi buuxa oo hela codad ugu dambeyntii wuxuu soo galay marka dawladdu soo galay wuxuu noqday wax la yaab kale 2022 wuxuu noqday xisbiga labaad ee ugu cod bata xisbiyada Sweden ka jira kadibna waxay ku qasbanaatay xisbiga hadda talada hayo inuu kan la midoobo cunsuriga ah haddana talada ay hayaan wasiir ay ku leeyahay marka wuxuu maamulaa siyaasadda wuxuu la yimid siyaasad ah inuu yiraahdo adiga data Swedish ma noqon kartid qof muslim ah sidoo kale maaldood waxay shaaciyeen oo yiraahdeen waxa rabnaa inaan mamnuucno xijaabka gabdhaha muslimiinta xijaabka inay dhigaan waaye haday joogan iskuulada haday joogan shaqooyinka inay dhigaan waa xijaabka ay rabaan in olol ku galaan hadda September sanadkan ayaa doorasho dhacaysa marka xisbiga marka talada waa ku culus tahay sanadkan muslimiinta yani daba socda markaste wax ka sheegayaan diimaha kale oo islaamka ahayn wax kama sheegayaan islaamka diinta islaamka ay markaas ku dhagan yihiin dadka muslimiinta ah ee waliba si toos ah u beegsanayaan ninkan markii ugu horeysay wuxuu tagay gobolka oo tagay Ciro darbigii ayuu madax soo saaray waliba asoo koofida ka dhacayso oo ligis tagin sida loo xirtay aqoon koofidaas ayuu tagay si lacago iyo qarashaad iyo sidoo kale in loo taageero doorashadan maadaama ay ku adag tahay sanadkan hoos u dhac badanna uu sameeyay xisbigiisa markii la arkay cunsurnimadiisa iyo sidoo kale waxyaabaha ay wadaan marka sawirkan waxa loo soo qaato waa in ayaga la tusiyo in la noqon karo muslim sidoo kale la noqon karo Swedish dadka ajaanibta ah oo muslimiinta ahna dalkan inay xaq ku leeyihiin ayna diintooda ku faanayaan adduunka oo dhan laga daawanayo sidoo kalena Sweden oo dhan waqti dambe ayadoo tahay 4 subaxnimo ayay tahay ayaa la daawanaya ciyaartan ka hor